Mudaran kureysiga guulo doontan yaa waliba uu sayaha gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo uu sageeka shir gudoomiye kulanka aadi in hayna suswar kuninka feriyaw wardan awestimo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe yaa uu shir gudoomiye kulan aadi in hayno yoonayska qoyan xubno guddiga roogtada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk kulanka wali goobroogay gudoomiyaha koowaad golaha shacabka Saadiya Yaasiin Haji Samatar ee dhammaan xubno guddiga war in la ka bandhigay tiriska jadwalka ee kulamada angaarka ka shaqeeyo ka reedan fiiriyowka dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya gudbiyeen guddiga la dareero ka reedan hubiyowka dastuurka baarlamaanka federaalk Soomaaliya xildhibaan Hussein Qaasim Yuusuf oo gudoomiyaha guddiga la dareerowka ee hirgeliyowka dastuurka baarlamaanka federaalk Soomaaliya iyo xubno guddiga roogtada usan ku warbixin tiriska kulamada gaarka ee dastuurka usoon xubno guddiga hal wadaagi geebo uu isaga kooban yahay jaantuska kulamada wadajarka ee lamada gole ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ee lagu doodo reedan fiiriyowka dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo gabagabadii hiri kulanka yaa uu ka hadalay ahmiyadda weyn in leeyahay tiriskan kulamada lagu doodo doona ee diiwaan fiiriyowka dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya war inuu ku warbiyay habdhowraha guud ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya kulan caadi ahayn ee uu yeeshay guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa waxa lagu soo gudbiyay jadwalka shaqo ee bilowga qaybinta dastuurka afarta cutub ugu horeyso berritoola loo qaybin doono kulanka golaha ee wadajirka sidaad ogtihiinba dastuurka kumeel gaadhka waxay ahayd wax ka bedel inuu ku sameeyo baarlamaanka federaalki waxaana la sugayay in la soo gudbiyo jadwalka iyadoo xilli dhow la ansixiyey habraaci dastuurka habraaca waxaa ku xigay jadwalka shaqo maalmeed ee wax ka bedelka afarta qodob ee ugu horeeya dastuurka kuwaas ayuu maanta guddiga joogtada ee golaha shacabku go'aan ka gaadhay iyadoo horay la isula meel dhigay in waqti ku habboon la keeno dastuurka qaybintiisa koowaad ay noqoto 12 bishan November oo berrito ku aadan waxaana la filayaa in doodiisu ay bilaabato 14 bisha November aan hadda ku jirno doodaasi waxay noqon doontaa mid labada aqal si wada jira u wadaagaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa waqti kooban oo bishan inagu soo fooda leh maajna inay soo gabagaboobaan afarta cutub ee ugu horeeya ee hadda ay soo gudbiyeen guddiga la socodka iyo korjoogteynta arrimaha dastuurka sadogtiinba dastuurku ma aha in dastuur cusub la sameeynayo ee dastuurkan ku meel gaarka ayaa waxa lagu sameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wax ka bedel qodobada kolka loo arko in aynan waafaqsanayn habkeena dhaqan ku habboon waqtiga hadda la joogo saadarteed marka baarlamaanka ayaana ka gaari doona go'aan wada jira waxaana filayaa inay muhiimadu ahayd inuu bilowdo wuxuuna bilaaban doonaa qaybintiisu berritoole sidaas ayuuna isku raacay guddiga joogtadii waxaana rajaynaynaa Ilaahay dankiis dastuurku inuu noqdo ku ay baarlamaanku ka gaaraan go'aan ay tiir u tahay maslaxadda shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka qaybgal wanaagsan iyadoo dood u furmi doonta kaliya ta ayna noqon doonin golayaasha ee lala wadaagi doono cid kasta oo danaynaysa ka qaybgalka iyo aragti ku darsiga inta uu socdo dooda dastuurka aweystimo warteel karlaaday muqdisho guddiga roogtada ee minka kora baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo ku shiri arrimo dastuurka soo kuninka feriyaw wardan Ibraahim Abdullaahi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaminka kora baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Senator Cali Shacbaan Ibraahim iyo buuse shir gudoomiye kulanka guddiga roogtada ee golaminka koraad ee ajandashaynan usahay dhageysadowka warbixinta guddiga golo kulanka waybuuse gobroog hayay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaminka kora mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade iyo dhammaan xubno guddigiisu ka kooban habdhowriga golo aqalka sare
Senator Fartuun Cabdiqaadir Karaama yaya faahfaahinaya kabidii kulanka guddiga roogtada iyo qodobadii uu markaasayti xakabahi kaasayti oo geeka lanka dahwaayay. waxaa shiray guddiga joogtada ee golaha aqalka sare kalfadhi aan caadi ahayn waxaa furay kalfadhiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan sidoo kale minutkii kulankii hore ayaa waxaa guddiga joogtada ka hor aqriyay xogay ku-xigeenka golaha aqalka sare mudane geedi waxaa furmatay doodii waxaa su-aalo la weydiiyey xogayaha guddiga dastuurka labada aqal senator Saciid oo su-aalihii uga jawaabay guddiga joogtada golaha aqalka sare ajandaha la isugu yimid ayaa waxay ahayd shaxda warbixinta dastuurka oo furmi doonto doodeeda ama qaybinteeda 12 Febraayo sidoo kale 24 Febraayo doodiya si rasmi ah u furmi doonto ujeedada kulanka muhiimadiisa ayaa ahaa shaxda iyo sida jadwalka uu kala gali doono ka doodista dastuurka in lala wadaago guddiga joogtada ee golaha aqalka sare shirka si nabad ayuu noogu dhamaaday waxaa noo soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan. Ibraahim Cabdullaahi Isaaq wartel Karlaadi beledka Muqdisho. tuhno ka dhaladeen dhacdooyinka dambeeyay ka dhiyay lamaanayaasha isqaban korri muddooyinka dambeeyay suwarku ninka Feriasa ana muxdiin arrintan argagaxa leh ay ugu soo korodhay family ama cawaylka ku dhacaysa waxaan u aragnaa runtii arrin abaabulan Soomaaliya iyo toddobaadkan la hadhaafay waliba iyo diiwaan geliday kiisas dhacdooyin oo horaan lan aragna dhacdooyinkuna iyo waliba abuurena tuxuno hoogan argagax iyo kala shaki hashal dhaxgalay hanraabta iyo magalka dhatiyo arlaadi video oo iyo aruuriday shan dhacda oo shanta dhacda anka xanuunka badan 22 bilo Janaayo 2024 siyaada macallin Cali Daawud iyo xaashay Luula Cabdilcasiis oo soo gubay degmada Dharkiinley ee Muqdisho 2 bilo Febraayo 2024 Sulaymaan Cali iyo xaasay Fawsiya Maxfuud oo soo gooriya dhacdaduna iyo waliba la wariyay Qoryooley Shabeellada Hoose 2 bilo Febraayo 2024 iyo hanraabay hartasho oo haya askari iyo ka gubtay degmada Daynile ee beledka Muqdisho 8 bilo Febraayo 2024 iyo haweeney marjidi hartashe Maxamed Cusmaan oo askari haya falkun iyo waliba ka dhigay wada jir Muqdisho isla bilo Febraayo 2024 iyo lama kuriya degmada iyo Kogooriyan adeersho oo qabi aawsho falkun iyo waliba ka dhigay degmada Yaaqshid ee beledka Muqdisho si kastaba haato dhacdooyinkun ayna hano iska caadi ah mise waa kiisas iyo reedka maleegahayan awoodo shisheeyo arrintan argagaxa leh ay ugu soo korodhay family ama cawaylka ku dhacaysa waxaan u aragnaa runtii arrin abaabulan arrintan uma aragno arrin iska dhacday oo xaadis ama arrin si dabiici ah u dhacday runtii uma aragno waxaan u aragnaa arrin abaabulan oo la soo abaabulay oo family iyo cawaylka lagu soo qaaday oo ujeedadeedu tahay in wax la marsado waa ogtiin sharcigii kufsiga sharcigii jinsiga ee liitay arrintii xumeed oo qowmuluudka ahayd ee halkan kaga hadalay ee baarlamaanka hadda ka hor laga diiday ee nu haddana diidnay waxbaa riixaya waxaa la doonaya in wax liita layna marsado madaxda Soomaaliya oo siyaabo shal duwan iyo ku duhween dhacdada weerarka ka dhigay General Daawud ee beledka Muqdisho suwarku ninka Feriyo waran Sacuudi haana kumadii madaxdii hore ee Soomaaliya waliba si kulul oo ku duhweena weerarkii xalay uu soo kudhii xirada General Golden ee beledka Muqdisho walhay Shariif Sheekh Ahmed رئيس الوزراء مريدي حسن علي خير إيو عمر عبد الرشيد علي شرمارك كوموديين ساسوكو الحلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه يوليب إيو ستعسين درينا إهلذا لمان دتكي كامودي وير كاسيتي عمر عبد الرشيد يوليب السجوني وسنجيدي يني فالكون وسموجيو سدا على شباب أنك رحجرت حردا قردنا وانا لنباه ني ديب لنحبه kiiraan sidisirkaala oon dhalatay imaaraadka iko kale oo ku jeeda Bahraynga ka amudeen weerar Konga oo uu sajaysidii askariga ku tirsan ciidanka Soomaali
walaasin sheeg maamuudya waliba isballan qaaday in tilaabo lagu qaado doono qof walba oo gacan ku jeysidii fududeeyowka iyo qorshiga weerarku xerada General Gordon iyo waliba iyo fadhisho ciidanka Imaaraadka oo tababarayaan Soomaalida walana iyo dhisanta tan iyo mudahilaadkii maridii Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Sacuudi wartayla raadi beledka Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaadi doonto tilaabo ku dhan ee Itoobiya suwarkun ninka feeriya marka kale Ibrahim Abdullaahi. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya way bay'isay adageen diidaysa walaalanka weeri heliiska safgaradka oo shal saxiixdeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Somaliland Janaayo 2024 iyo shal saxiixdeen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya. qoraal hasaartii wasaaradda umuuro banaanka Soomaaliya iyo way bay'ala ka sheegay intii safgaradkaasi tusay sharci darro waana loo ka tilmaamay ku xadgudub madax banaanida midnimada Soomaaliya iyo midnimada dhuleedba. dowladda Soomaaliya ayaa way tilaabadaasi Itoobiya iyo ka tilmaantay tomeelnindeyna oo ay ka micnaaytay xadgudub xaliska dhinaca shuruucda caalamiga iyo habdhaqanka iskaaladowga ka dhaxay dowlado dariska wasaaradda umuuro banaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo cuskadaas dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xeerarka kale qaranka oo dhigow wasaaradda umuuro banaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo cuskadaas dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xeerarka kale qaranka oo dhigayaan intii qiraasa intii anjarna maamul goboleed oo ka tirsan Soomaaliya oo Somaliland ka mid ah oo wadani lahayn intii heliisyo la galan dalalka kale. war-saxaafadeed kan hakabahi wasaaradda umuuro banaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo way ballan ka sheegay intii dowladda Soomaaliya ay qaadan doonto tilaabo kasta oo ay ka beeniyayso fuliyowga heliiska sharci darrada dhinaca kale dowladda iyo wayba midowga Afrika beela caalamka iyo qaramada midoobay yanka baaqday intii marnaba yoon ogolaan xadgudubka Itoobiya ee ka sameeyay madax banaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. inka dambeyntii dowladda Soomaaliya way bay sheegtay intii Itoobiya heliiskaasi inka danlata fashiliyowga guulo Soomaaliya iyo ka deerti dinacfiyowga ka qaadowga cunaqabateynta 30 sano ka dambeeyay saarnayti guulo la ka deeri dagaalka ka dhinay Al-Shabaab. Ibrahim Abdullaahi Isaaq wartalka Arlaadi beledka Muqdisho. guultoodan sharafta leh wali baysan guulada tan warka hamiinimo ee wartalka Arlaadi landoorka banaankan waliba ku mid aha militariga meermaaya qasabahay dhalinyarada da'da yar ay rajada magaalyo bilaan ee dhiniga militariga sidii ay sheegtay warbaahinta dowladda ee golaha militariga ee xukuumow mayar waajib yoon ka dhigan da'yarta magaalyo bilaan iyo ooniyo ku qayb galayaan shaqada militariga ee yaraan lama sano wiilalka da'diyo tumisiyad ilaa 35 jar iyo bilaanta da'diyo yoon tumisiyad ilaa 27 yalo ku fade iniyo lama sano iyo ku qayb qaadan howlo militariga inta la ku gudo jara xaaladda degdega way guultoodan sharafta leh gabi ahaanba waliba meelaha ka gabagabeeyeen warkii hamiinimo ee wartalka Arlaadi soo guuladaaseen warkaan oo Shaafi Sheekh Barreesin dareesay wadaykii Asad iyo dhinaca kaamirada hay oo istimoya saari intii wax ku kulamada reedan kulamaan waliba siin ku tabaane hamiin fayl